fadhiya gartay koonfur galbeed gartay waxa weeye Jubbaland gartay waxa weeye galmudug gartay maamulka kale hadii la kuuran yahay Hirshabeelle oo magaalooyinka ay xukuumaan bay doorasho ka qaban karaan warbal ninka inay yeelka oo aan burcatay karin oo hargeysa tay karin oo aan berbera tay karin oo xaafada Cergaabo ka degan tay karin ee saalax jaama balay masiir Soomaaliyeed laga hadlaya war anaga waa mas'aadan bal laga heysaya ninkii dalkiisa xorta ahaa ee dhulkiisa xorta ahaa ee dhulkiisa maamulayna siyaasadda Soomaaliyeed banaanka ka jooga wax D5 lid ku ah ama dulmi ku ah yeeli maayo laakiin D5 haday wax ku gardarayeen ama wax ku khaldayeen ay jirto darto wala sheegaya laakiin madaxweynaha mar walba la iska dhaliilo wax walba keena garaf kale u dhufto waa hawiye waxaas dowladnimo soo bashaqayso daaradka la hadlaya kuwa isu qoray wax weey shalay baad mucaarasaneen shalay baad taageersaneen maanta loo mucaarasata war shalay ana taageeray danteeda ka dhaxarkay maanta ana mucaarasan danteeda ka dhaxarkay way siyaasaddu waa mutual interest way siyaasaddu igu soo orod ma aha in 15 milyan oo kabla ay degayihiin horta wax rabnaa inaan horta guri u dhisno ama guri u iibino waxay ku shaqeystaan oo ku degaan ay bismillaah assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatu soo dhawaada halkani waa Cabbaas Madani meel kasto naga daawanaysan soo dhawaada warbixino kooban baan idin siin doonaa afar qodob ayaan dul istaagi doonaa arinta koowaad waa shirkii xamar ka socday ee dowlad goboleedada oo fashil u dhow maxaa ka soo kordhay wada hadaladii halkii Axmed Madoobe taagnaa ma ka soo dhaqaaqay arimahaasi waan ka hadli doonaa arinta labaad aan xusu doono weeye nin Ethiopian oo Orom ah oo maaldood wareysi bixiyay ayaa turjumaad badan laga bixiyay reeraysi Khaatuma is weydiinaya mowqifka Khaatuma iyo uu kaga hadlay xog baan tan idinka hayaa arinta saddexaad Maleeshiyada argagaxisada khawaarijta SRM ayaa xadeer oo aan muuqaalka duubayo daqiiqado ka hor laga soo wacay duleedka qorlugud inay weerar gaadma ay qaadeen laakiin ugu dambeyn ay fashilmeen taana xog baan idinka hayaa waxaan ku soo gabagabeynaa arin qoyskii maalintii dhaweed aan ka hadlay ilaa sacad lagu soo dhaweeyay dad badan aad ii weydiiyeen iyagana xog baan idinka hayaa insha Allah si shir garee muuqaalkan waa kugu amaano meel dheer ka tur ugu horeen muqdisho shirki ka socday boqolkiiba 80 u dhaweeyay fashilmo sababta waxa weeye horta shalay lama wada fursan madaxweynaha guud laawa ayaa xaflad ku lahaa sanad guuradii 8aad Hirshabeelle laakiin wixii ka horeeyay shalay wax wada hadala oo la isugu yimid ama golo la isugu yimid oo la wada fariistay ma jirto sidii baa loo kala fadhiyay ilaa hadda stiil madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dadaal badan buu ku bixiyay inuu hadii la kuuran yahay oo Axmed Madoobe qanciyo Axmed Madoobe waa diiday wuxuu doorasho qof iyo coda ma hawiyay waxa qabsanaya iyo ninka in la yaalka iyo ninka raaxweyn ما يركي وحوي سجال كجوال الصومالي يستوي طبعا جوال الصومالي وي سجال جوال دارات بعد كده يركي مجورتي كامي ورهو هذا نكوينا ماشي هو هذا نكوينا هذا وقت يلا بنت للمقنتهاي واستقاطه مقنتهاي مصير الصوماليات كما حد يكره وركا وليكو فم جري انت صرت احمد مدو وكل هذا لكن وجهك احمد مدو ليهي سو خراوان ودي سو دورته دي من السعود مع مدو عيد كهر تاغن او كعلن كرتنا ما jirto horena muuqaalkii ugu horeeyay waa idinku sheegay war meesha wiilkaas askare waa dhaxal weey maalinta uu dhinto oo ilaahay tiisa u timaado umbu meesha ka dagaya xasan maana ka qaadi karin mid kale imaadana ka qaadi karin waxa weey hadii la kuuriyay prime minister maana ka qaadi karin ninkaasi meesha waa xoreystay ilaa gar alla taqaanaay ciidan xoogana waa haystaa cid u dhawaan karta ma jirto lagama maarmo dantaas uu leeyahay annaga hadaan nahay SSC Khaatuma iyo Puntland waxa weey hadalka waa yiri waana noo yiri isaguna dambu wataayo xusleey fursad aad meesha kaga baxdid ama hadii la ku raahato shirka ama arimahan mashruucan doorasho qof iyo cod ee madaleyska aan Soomaali u wada dhameyn kaga baxso ujeedkaas oo Axmed Madoobe leeyahay laakiin anaga waxba naga galin ujeedkiisa muhiimadu hadalkaasi inuu ku galgalo shirka oo shirka dhaqaaq waayo waxa weey taas anaga noo muhiimsan taas wartaa weeyo maanta ugu dambeysay waxa loo diray ninkii la oran jiray prime ministerkii lafta gareen qoor iyo kii inayaalka haay idoorka haay saalax jaaba intiba ku wax weydii sheega waxaan xasan ka diiday buu yiri idinkeeda ka ogolaamaayo iyaguna waa ku soo hongoobeen waa ka soo laabtay marna waxa la sheegay
أحمد مدو horta beri wuu dib u laabanaya sida noo sheegay Jubbaland ku laabanaya inuu Xasan la xiriiray mucaaradkii Jubbaland oo yiri waynu sunnimaana Arbacada kulan yeelanaa kulankaasna ku gurfayna xaaladda Jubbaland faan weyn Axmed Mado Jubbaland lagu dagaalami kara wiilka ogaadeen reer Cabdulle Landheeraha ay qorta u taagay waxa way 30 kun oo wiilay waxa way reer Jubbaland war wallahi cid xigta u dhawaa ka tabajirto dad baa waxaan maalmaha soo qorayeen Cabaaso Xasan Barra waa daliil Samar war Xasan waa madaxweynaha Soomaaliyeed taarto ku biyacab daliilna waa leeyahay amaana waa yeelan karaa hadda moogta anigu danta is khaatumo iyo danta daarood cid aan dhaafsanay ma jirto marka danta is khaatumo laga yimaado ta D5 cid aan dhaafsanay ma jirto wax D5 lid ku ah ama dulmi ku ah yeeli maayo laakiin D5 haday wax ku gardarayeen ama wax ku khaldayeen ay jirto darto wala sheegaya laakiin madaxweynaha mar walba hala iska dhaliilo wax walba keena ganaf kale u dhufto waa hawiye waxaas dawladnimo soo shaqeyso daaroodka la hadlaya kuwa iisoo qorayay wax way shalay baad mucaarasaneen shalay baad taageersaneen maanta waa mucaarasata war shalay ana taageeray danteeda ka dhaxarkay maanta ana mucaarasan danteeda ka dhaxarkay way siyaasaddu waa mutual interest way siyaasaddu igu soo orod ma aha ha marka daaroodka waxaan leeyahay yaan loo fiirin Xasan waa hawiye war hadaan hawiye diidin ku xukumo ayuu soo rabtaan hawiye xukuntid xas waa khalad way siyaasadda barta waxaan nimanka ku gilgilina away masiirkeena iyo taladeena inay meesha ka dhex muuqato oo wax aanan anagu qayb ka ahayn aan suurtagalayn taa waa lagu mucaaradka waa lagu dhalin karaa laakiin in yow iska socota iyo mucaaradnimo iska socota adduunka saas uma shaqeyso maanta Xasan baa barnaamij daarada imaanay saadama nin kale waxa imaanay hawiye wayna aduu soo doonaysid in wax xukuntid aduu ogolaad wax xukuntid Xasan Sheekh Maxamed madaxweynaha Soomaaliyeed haduu wax wanaagsan ka shaqeeyo oo si wanaagsan u shaqeeyo oo si wanaagsan u shaqeeyo oo si wanaagsan Soomaaliya soo kale war waa taageerina anaga dawladnimo aan dhaqdaa laakiin dawladnimadaasi hadii lagu dulminayo reerkayga taa inta ka yeeli maayo taa horta dadku inay ogaadaan way mid kale ay sheegay wax way bal Soomaaliya su'aal bay weydiinayaan madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamed su'aal bay weydiinayaan waxa leeyahay Soomaaliya doorasho laga qabanaya hadda ma ogta ninka meesha fadhiya gartay koonfur galbeed gartay waxa way Jubbaland gartay waxa way galmudug gartay maamulka kale hadii la kuuran yahay Hirshabeelle oo magaalooyinka ay xukuumaan bay doorasho ka qaban karaan war bal ninka inay yeelka oo aan burcatay karin oo hargeysa tay karin oo aan berbera tay karin oo xaafadda Cergaabo ka degan tay karin ee saalax jaama balay masiir Soomaaliyeed laga hadlaya war ma anaga waa mas'aadan bal laga heysaya ninkii dalkiisa xorta ahaa ee dhulkiisa xorta ahaa ee dhulkiisa maamulayna siyaasadda Soomaaliyeed banaanka ka jooga suuragal ma aha taas horta waa taas Soomaaliya waa garnaqo doonto waxana hadii ay sida ku socoto caawa kelmad igu hore sumo wallahi tuutu meesha joog baan noqdo afisiyoni baan isku tagi doonaa afisiyonina ilaahay wuxuu ka siiyay waxa calafka ka qaadanaysa simba intaas waa intaas xaaladu waa akaran tahay shirkaasi fashil buu dhow yahay waxa way gidaarka ayuu madaxa ku soo dhufanay madaxweyne Xasan Maxamed way qaabkan uu shaqeynaayo waa qaab khaldan oo aan Soomaaliya isugu keenin karin intaas horta waa intaa way arinta qodobka labaad nin baa maalin dhow hadlay Oromaa marka arinta ay si khaatumo ka hadlay wuxuu yiri turjumaan khaldan bay sameeyeen dhalinyaro badan oo turjuntay laakiin nin af maxaariga aad u yaqaana la xiriiro professor horta mu oran SSC khaatumo iyo argagixisa wada shaqeysa mu oran laakiin wuxuu yiri SSC khaatumo adag oo Xasan Sheekh Maxamed ama dowladda Soomaaliyeed bay ku xiran yihiin qoliyahan argagixisada ee waliba Daashna waxa weeye waa meelaha ka taliyan way isu dhow yihiin waagi hore waxa la oran jiray British protectorate baa la oran jiray waxa weeye dhulka Ingiriiska gumaysto weeye arrimaha noocaas ka hadlay ma markii hore la oran jiray maanta waa SSC khaatumo dhulkooda maamusho arrimahaas ka hadlay markaas uu dowladda Soomaaliyeed buu mucaaradsanaa inaga way inoo soo waxa weeye dhinac maray Ethiopia in hadda SNM la socoto shaki kuma jiro laakiin dad baa waxay muujiyeen shaki iyo cabsi Ethiopianka xaggooda wararta Ethiopia sidii ay ahaan jirto soo ma aha Ethiopia awood leeyahay waa u dhamaatay Ethiopia maanta caga ku taagan ma jirto waa Orom ninkani horta Oromada ma dagaalamaan haday dagaalamaan dhulkoodii deegaankoodii maanta waxa weeye dowladda ay prime minister ka yihiin bay xoreysan lahaayeen farabadnaan way hayaan laakiin ficil ma laha dadku waxay moodayeen Ethiopia Tigreega haystay Tigreegu gaala yaryar bay ahaayeen caawadii ku hanjabaan bari waa ku soo weerarayaan gobolka oo dhan waa haysteen simba marka nimankani waa waagu ku bariyay magaalada Addis Ababa kaliya Ethiopia lagu sheegay maamushaaba
gobolkii waxa weeye amxaarada faana qabsatay guud ahaan haddii la kuuriyay oromadii gobolkoodii cagabada kuma taagna. Tigroogu maanta wada hadal waxay kula jiraan Eritrea oo ay rabaan ku biiraan sababta waxa dhul bay haday Ethiopia la joogan amxaarada artaan dhulka qaato labadooda mid bay dooranayaan ka danta ugu jirto waa Eritrea hadda waxa weeyay negotiation ay kula jiraan. Ethiopia inaga hadda wax ay yeeli karto ma jirto, ciid ahaan oo burburtay, siyaasad ahaan oo burburtay, dhaqaale ahaan Ethiopia oo burburtay. Midna ogaada reerisi khatmaan leeyahay war ma ogtihiin DDS dowlad deegaanka Soomaalida in 15 milyan oo kabla ay degan yihiin oo heegan ugu jira inaga taageeradeena. Ethiopia intay soo durdursay ugu soo duulaysa waagi hore ilaas anood gacanta cadawga loo galiyay niman siyaasiyiin gacanta u galiyay oo daaros Ismaaciil oo qaarkood harti yihiin ba waxa way agreement kula galay Ethiopianka iyagoo dana gaar ah oo shakhsiyad dhaafsanaya in laas anood gacanta loo galiyo jabhada khawaarijta ay gaxsadaysan. war Ethiopia waaga awood lahayd ee Soomaalida farq u yeerisay ma jirto. war 15 milyan kabla marka la soo dhaafo markaas inagu Ethiopia baynu ismadan doonaa laakiin inta ka horeysa cabsiyaan jirin siyaasiyan way jiraan. isla maalintii aynu diriireynay waxa way hadii la kuuray dagaalku socday dawal uu hubeenay adoofteena waynu ku adkaan si kas hadii loo soo hubay guush mar walba dhanka raacaysa marka ayaan wax weyn laga soo qaadin. intaas waa intaas. qodobka saddexaad qorigood waxa dhacay caawa waqtigan muuqaalka duubay ka hor oo laga soo wacay qoliyo maleeshiyada ayaa weeraray niman xoolo dhaqata ah oo geel markaas caraabinaya dowladka qorigood oo muwaadiniin is qaatuma. weerarkaasi wiilashii qalasyada ahaa ayaa ilaahay isku beegay iyo maleeshiyadka khawaarijta argagixisada jilbaha la isku dhigay. hal qof oo wiila ayaa dhaawac fudud inaga soo gaaray iyaguna kale carare wax ma ka dhinteen wax ma dhaawacmeen kale wax la habeena bari baa la ogaanayaa. laakiin weerarkaasi waa ka fashilmay siday doonayeen oo ma noqon. meeshaasina maalmahan boorkooda waa la hayay maalinta dhaweyd baa la ogaa markii ay gaadmo soo direen falaaga ciidamada ay waxa way gaadmihii markuu yimid waxa way laga takhalusay watay gabadh reer isii qaatuma ugu argudeen labadii bay rabaan ka daba tagaan oo ay u argudaan laakiin feejignaan ballaaran baa dadka reer isii qaatuma ku jirto oo ay u diyaarsan yihiin inay si weyn arintaasi uga hortagaan. bari baan ogaanana khasaaraha gaaray laakiin waxaan ku talin lahaa anigu war waxaan maalin walba soo socda waxa ninkii soo joogso laga waayo soo jibta laga helaa. war waxaan joojin waayo war mar gacan la saaro sidii kuwii boqor dharkeen hawa jeclay hadda boqor dharkeen degneed idab biyay darbaaxa la dhacay waa la xanuuji awoodooda la tuso kuwa Maxamed Abakor ee waxa way qorigoodku urursanay in maleeshiyada iyaguna gacan bay u baahan hadda Ilaahay bay ka bareeyaan gacan la saaray qalashaduna oo diyaar weeyaan waxa ku talin lahaa waxba yaan la daawan waxba yaan la suud hal mar loo tago hal soo idbiyo shaddan waxa laga dhigo si ay idaba yeeshaan. qodobkaasna waa qodobka wixii ka soo kordhay socodsiin arinta ugu dambeeya qoyskii aan dhawaan idii baahiyay Bashiir iyo Salma horta xaaladooda waa fiican yihiin. Bashiir waa reer isii qaatumo gabadhan waa reer Burco gayaan istoortay iscalfaday reer Burco bay ahaayeen waa la cusriyeeyay qoyska waxa weeye cusriyad weyn bay la kulmeen. wiilku meel ka shaqeyn jiray waxa looga cayriyay reer isii qaatumahan qadiyada qaatumo oo taageeray gabadha waa lagu dhibaateeyay xaaskiisa isaga xabsi baa la geliyay markii dambe waa la soo damintay way soo amba baxeen laas aanad bay imaadeen guuro badan bay ku soo baxeen dhul badan bay soo qartajaxeen xataa waxa la sheegay in markii magaalada ka soo baxay xataa lug masaafo ilaa 10 kilomitir ay soo lugayeen oo ay ka baqeen kantaroolada dhibaato weyn bay familkaas la kulmeen. gabadhu hadda kor bay sheegtay family waxa weeye waxay ka soo jeedaan haysan maanta laas aanad bu joogan waxaan u baahanahay inaan familkaas u kacno wax u qabano garab iyo gaashaan u noqono. marka waxaan dad badan bay soo weydiiyay rabaan in lacag gaarsiiyaan horta waxaan rabnaa inaan horta guri u dhisno ama guri u iibino waxay ku shaqeystaan oo ku dagaan ay markaasi helaan. Soomaalidu baan soo eegaysa waxa leeyahay war gabadha ay qoyskaas is alfaday ee halkaas masaafada soo jaray war wax ma u qaban doonaan su'aal baa saaran wax ma u qaban doonaan su'aasha aad la isu weydiinayaan. marka flowerkan taageerada qoyska Bashiir iyo Salma waxa rabaa inaad nagala qayb qaadatid
fadlan oo qof kasto oo Soomaaliyeed iyo qof kasto D5 inuu ka qayb qaato numberka goliska waa 090 hal baa u dambeeya waxa ku soo bixi doona waa number golista Bashiir Maxamed Cabdiraxmaan fadlan waxay ka codsanayaa wiilkaas waxa rabnaa gurina inaan u iibino qoyska waxay ku shaqeystaan oo caruurtiisu bariiskiisa kula soo baxana inuu helaan doonana insha Allah qof kasto ka qayb qaato waa ajri xasanaad weey qoys soo haajiray oo hadii la kuleeyahay meesha deegaan ku haayeen war hal alaab xataa ma wataan waana idin magaalada 10 kilomitir masaafe aan bay ka soo lugeeyeen dhibaato badan iyo handada badan bay la kulmeen hadda ma ogtahay marka qoyska inuu soo taagno insha Allah taala walaalayaal isgaarsiiya numberkana waa numberkaas weeye share gareeya waliba la xiriira telefonkayga wata la xiriira iyo koonkaba la xiriira insha Allah hadii la kula lacagaha la isgaarsiiyo khayr baan idin rajaynayaa